dagaalka maanta maalmahan ba ka soo qeybiyay Soomaaliya. waa gartay hadda xagee ku sugantii hadda magaalada dusheedaan ku suganahay. maxaa idin qorshaysay hadda maadaama magaalada ka baxdeen ciidamadii Raaskambooni iyo kuwii Kenya ay si toos magaalada ula wareegeen way soo qabanayna dib aan ugu soo rogaal celin doonaa jaalay magaalada dhibaato culus oo bini'aadanimada ka baxsan oo xasuuq ah ka socda guriyihii baa la burburinayaa waa la gelayaa wixii yaallo dhan baa la qaadanayaa gabdhihii baa la kufsanayaa waa la dilayaa qofkii dhaawac u yimaado waa la dilayaa wax bini'aadanimada ka baxsan oo xeerarka dagaalka ka baxsan baa magaalada ka socda waxaasoo dhan waxaa fulinaya oo mas-uul ka ah oo annaga magaaladii naga soo saaray waxa weeye waa ciidamada dawladda Kenya iyo kooxda Raaskambooni oo iskaashaya waxa weeye arrintaasna haddii adduunka oo dhan baan u sheegaynaa inaysan Kenya u joogin meesha wixii loogu talagalay iyo magaca ay sheeganaysay som ay u joogto dhibaatayn iyo xasuuq bini'aadankii joogay magaaladaas oo dadkii ku noolaa adduunka waxaan ka codsanaynaa in Kenya tilaabo cad oo muxuu ahaa xuquuqda bini'aadanka in laga qaado dalkanagana ay nooga baxdo waxa weeye waddankanagii bay soo gashay sharci darray ku soo gashay way qabsatay way haysataa xuquuqdanadii bay ku xadgudubtay cid ay u ogoshahay maamulkiisa iyo ka qayb qaadashadiisa iyo noloshiisana ma jiro dadka carada ku nool oo deegaanka ayna aqoonsanayn dawladda Soomaaliya ka jirtayna aqoonsanayn xuquuqda bini'aadankayna aqoonsanayn sidaas awgeed adduunka waxaan ka codsanaynaa in fariintaas aan deeno ay u dhaga nuglaadaan oo aqbalaan oo dawladda Kenya ciidamadeeda ay dalka Soomaaliya kala baxdo waa tahay had maanta ka soo baxdeen magaalada Kismaayo hadda waxaad ku sugantihiin sida nagu maqaalada duleedka magaalada wararka qaar waxay sheegayaan in aad al-shabaab isku dhiibteen wararkaas maxaa ka jira wararkaas waxaan faliga raal lahayn weeye shabaab 95% dad Soomaaliyeed weeye annaguna dad Soomaaliyeed baan nahay waxaan shaqada dalka naga dhaxeeya xuquuqda dalka naga dhaxaysa dad Soomaaliyeed baan nahay aan siyaasadda ku kala duwanaano oo mabdi'iyada aan kala duwanaano laakiin waxba ka dhaxeeya shabaab macaash Kenya naga dhaxeeya waxa weeye annagu muslim baan nahay ayagu waa gaalo Kenya la yiraahdaa Soomaaliya la yiraahdaa waddan bay leeyihiin waddankanagii bay ku soo xadgudbeen oo nagu leynayaan oo nagu dhibaataynayaan marka waxa weeye shabaab waxaan u midoobi doonaa colaadda iyo kasaarinta Kenya dalkanaga waa tahay hadda haddii aad ku sugantihiin duleedka magaalada Kismaayo magaaladiina ay qabsadeen ciidamadii Kenya iyo Raaskambooni maxaa idin qorshaysan war magaalada dib ugu noqon doonaa hadda waan samaynaynaa waxa weeye Kenya iyo nimanka la socda dadka carrada degan wax kuma leh guri kuma leh ciidamada degana dhismo kuma leh ganacsi kuma leh annagu sababta aan u xeeladaysanay oo aan magaaladii uga baxday waxay ka mid tahay in wax bini'aadanimada ka baxsan lagu samaynayo dadkii maatada ahaa oo taangiyo loo adeegsanayo oo madaafiic loo adeegsanayo oo wixii kala duwanaa dadka loo adeegsanayo oo la duwanayo taas baa keentay nimanaan ka jiray oo nooca wax ay uga naxayaan ayna jirin annagu taasaan u naxnay waxaanu ku talagalnay inaanu banaanka u baxno isa soo habayno aan ayaga la dirirno haddii aan la idno dadkaasna maba filayno nimanaan adugu sidaan horeyba kuugu sheegay wax ay badbaadinayaan aan jirin baa meeshii aan annagu uga soo baxnay waxaasoo dhanna dee Kenya wey
ma jiraan cod idinka hartay intiini iska barbar dagaalamaysay والله إننا وإسكبر بالدجالميني حوجي يا ماضي ذاتك الصوماليات ضمان وحي كل بعد تيسان هذا وهاد لو قلت تيجي مجال الموجي وحي كلا وصابحين ذاتك الشعب كان تيروي كي يراعي الضحي إذا ماضي ضمان magaalada dusheeda ay isku habeynayaan oo joogaan iyagoo beel kasta leh oo Soomaaliya waata waxay la socotay dawladda federaalka Soomaaliya hadna Kirenex ma ka taagan aad uga hadashaan dawladda federaalka dawladda Soomaaliyeed weeye xil baa ka saaran dhibaatada ku dhacaysa xil baa ka saaran dawladaha ku xadgudbaya oo dalkii qabsaday oo qaatay oo dhaqaalahoodii isaga muxuu ahaa كيو وقت حويان ماشي اللي هذا دكتور بورك دقارها تصبح بقول كي أفرت هي شنبي قارتها وحى دقارها هو قادنا يعني ووحى سببها هي حياة نوانا هاي ولا كنترولين هو كل سنة وعمل خاطئها هنا الصومالي وآخرين دولة الصومالي لما وصلها ما اعتراف سنة لغونا سعر الغالي كانوا وحي دولات كسعبنا هذا الدور قابل الغل باترياه